السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قصدي نيكي سو أفجري استراحة يسردونكا مريكنكا. إدوارد جوزيف سنودن waxau kamid yahay dadka loogu raadinta badan yahay wadankaasi Mareykanka. Haddii aad soo gudbiso Snowden waxaad helaysaa abaalmarin dhan malaayiin dollarka Mareykanka ah. Waxa uu kashifay siraha Mareykanka iyo sirdoonka CID-da iyo hagardamooyinka ee adduunka iyo shacabkooda u geystaan. wuxuu kashifay siro iyo faylal aad qarsoodi ugu ah CID-da Mareykanka kadibna waxa uu baxsaday dhankaas iyo wadanka Ruushka. haddaba waa kuma Snowden maxayse yihiin siraha uu daaha ka qaaday? Ramadan Kareem. Edward Snowden waxa uu dhashay sanadku markuu ahaa 22 Yuulyo 1983. dhalasho ahaanna wuxuu ka soo jeedaa wadankaasi Mareykanka. Snowden wuxuu aad ugu fiicnaa aaladda tiknoolajiyadda iyo agabka la xiriira. waxa uu nala shaqo bilaabay wakaaladda sirdoonka Mareykanka oo ah run ahaantii shaqo aad u dhib badan una khatar badan. waxa uu ku soo barbaaray Elizabeth City ee raacsan gobolka Carolina. muddo ka bacdina isaga iyo reerkiisuba waxay u soo wareegeen dhankaas iyo Maryland. waxay ag degeen xarunta guud ee sirdoonka. mid ka mid ah mas'uuliyiinta CID-da oo ka warbixinaya Snowden ayaa waxa uu yiri sida tan: Snowden kama mid ahayn dadka ugu sareeyay yacni xagga waxbarasho markii uu ka qalin jabinayay iskuulkiisa sare. almuhiim iskuulka kadib waxa uu ku biiray jaamacadda Maryland gaar ahaan kulliyadda kombiyuutarka, laakiin nasiib darro ma uusan dhamaysan waxbarashadiisii jaamacadeed. waxa uu ku biiray ciidamada Mareykanka. waxaa maanka Snowden uga jirtay fikrad ah inuu ka dagaalamo wadankaas Ciraaq maadaama uu aaminsanaa inuu xoreeyo dadka culayska siyaasadeed haysto, balse waxaa ka fikir duwanaa dhalinyarada la jiilka ahayd ee kula tababaranaya xerada Mareykanka oo aad ugu xamaasadeysnaa inay dagaal galaan waxna dilaan. aad ayuuna uga soo horjeeday fikirkaas, waxaana aaminsanaa in markay Ciraaq tagaan ay nabadayn iyo xoreyn ku sameyn doonaan dadkaasi reer Ciraaq. balse waxaa fajac iyo amaka ku noqday markii uu ogaaday in ciidamada Mareykanku ay xasuuqaan tiro ka badan intay Carabtu xasuuqdo. nasiib darro Snowden waxaa soo gaaray dhaawac dhanka lugta ah xilli uu ku jiray tababarkiisii, taasoo sababtay inuu ka baaqdo ciidamadii Ciraaq loo diri lahaa. waxaana lagu qoray inuu waardiye ka noqdo mid ka mid ah xarumaha ay khaaska u leeyihiin wakaaladda sirdoonka Mareykanku ee CID-da. Snowden waxa uu hibo rabaaniya u lahaa kombiyuutarka inkastoo ay dhibaato weyn ka haysatay iskuulkiisii sare, balse aad ayuu ugu fiicnaa isticmaalka aaladda kombiyuutarka iyo wixii la xiriira. sida caadiga ahna xarumaha sirdoonka iyo mukhaabaraadku inta badan waxay isku dayaan ciddii talanti ama hibo gooniya u leh inay ka faa'iidaystaan iyagoo aan u geegin qofkan heerkiisii waxbarasho sida shahaadooyinkiisa. waxaana looga faa'iidaystaa xog aruurinta, hacking-ka iyo arrimaha xirfadaha la xiriira. waxaa jiray hackero badan oo ay dowladda Mareykanku ka faa'iidaysatay. almuhiim Snowden waxa uu ku soo biiray wakaaladda CID-da waxaana laga wareejiyay shaqadii waardiyanimada iyadoo loo wareejiyay xirfadda uu ku fiican yahay ee aaladaha kombiyuutarka, gaar ahaan qaybta amniga elektarooniga. xirfadiisa aadka u sareysay ee programmingka iyo kombiyuutarka la xiriira ayaa u sahashay in Snowden uu horay u socdo. kadib waxaa loo wareejiyay qaybta diblomaasiyadeed ee Geneva, waxaana madaxa looga dhigay waax dhan oo qaabilsan amniga elektarooniga ama online-ka, taasoo u sahashay Snowden inuu gacanta ku dhigo xogo iyo siro aad u horsareeya oo aan cid kasta heli karin inay ogaato. waxa uu aad u dhex galay shaqaalihii wakaaladda sirdoonka, waxaana ogaaday siday u fakaraan CID-du. waxa uu ogaaday sidoo kale in CID-da Mareykanku ay daawadaan xogaha lana socdaan waxyaabaha ay shacabku sameynayaan, xataa waxyaabo aan sharci ahaan loo ogolayn oo ku kacaan waaxda sirdoonka Mareykanku. ayaamuhu way socdeen, waqtiguna wuu isbedelay. waxa uuna Snowden go'aansaday inuu daaha ka qaado siraha dowladda iyo hagaadaamooyinka ay u geysanayaan shacabka iyo dadweynaha adduunka, balse waxa uu go'aansaday inuusan fashilin, waxaana u sabab ahaa laba arrimood. waa midda koowaad, iyagoo CID-du daba joogeen nin ay aad ugu haminayeen inay qabtaan oo la qurux badnaan weyday Snowden inuu fashilo sirta Mareykanka iyo CID-da. iyo midda labaad oo ah in Obama ku guuleystay xilka madaxtinimada 2008 bilowgeedii, waxaana aad ugu haweynaa in xukuumadda Obama ay wax badan ka bedeli doonto daldaloolada sirdoonka iyo xogaha gaarka ah ee shacabka oo si toos ah loola socdo. sanad ayaa ka soo wareegay, Snowdenna uma muuqan isbedelkii uu rajaynayay. dabcan way jireen isbedelo, balse ma ahayn kuwii uu filayay. 2009 ayuu Snowden ka tagay wakaaladda sirdoonka Mareykanka, waxaana la shaqo bilaabay qolo sirdoon ah bayskoodu yahay wadankaasi Japan. si dadbanna ula shaqeeya wakaaladda sirdoonka Mareykanka ee CID-da. Saluug iyo quus ayaa u muuqday Snowden, mana u rumoomin riyadii iyo hankii uu lahaa.
xukuumadda Obama iyo isbeddelkii uu ka filayay in la gaaro. Aakhirkii waxa uu go'aansaday inuu bannaanka keeno sirihii sirdoonka Mareykanka. Sanadku markuu ahaa May 2013 waxa uu qaatay fasax isagoo ku andacoonaya inuu xanuunsan yahay una rabo inuu istaweeyo. Isla markiiba Snowden waxa uu cararay dhankaas iyo Hong Kong, waa waddankaasi Jabaane. waxauna daaha ka qaaday barnaamijyo ay dowladda Mareykanku kula socoto dhaqdhaqaaqa muwaadiniinta isticmaalaya aaladaha elektarooniga iyo kombiyuutarada oo lagu magacaabo Breeze, oo ah run ahaantii barnaamij aad u xun oo qofka privacy-giisa ka hor imaanaya. bal suurayso adiga oo dhaqdhaqaaqa taleefankaaga lala socdo, cidda aad la hadlayso, xataa kaamirada taleefankaaga ama kombiyuutarkaaga lagala socon karo, xataa adiga oo offline ah. cajiib. haddii ay tahay markii kuugu horeysay aad maqasho xogtan, fadlan like saar, sidoo kalena commentiga noogu soo qor. Snowden waxa uu xogtan la wadaagay wakaaladaha wararka ee Guardian iyo Washington Post. Snowden waxa uu gaaray go'aan aad u adag, heer uu ka samray noloshiisii oo dhan, wixii uu hanti ku lahaa Mareykanka iyo mushaharkiisii oo ahaa $200,000 Mareykanka sanadkiiba. bal suurayso waa qar iska tuur caadi ah. waxaa ka mid ahaa su'aalihii la weydiiyey Snowden, maxaa kugu khasbay inaad go'aan intaas leeg ka qaadato? waxauna ku jawaabay, run ahaantii maahan waxaan shakhsi ahaan jeclaan lahaa in la idaawado ama lala socdo dhaqdhaqaaqayga iyadoo aan sharci loo marayn, mana cabsanayo ee waxaan u cabsanayaa ehelkayga in la dhibaateeyo. bil kadib joogitaankiisa Hong Kong waxa uu duulay dhankaasi Ruushka 24 Juun 2013. isla maalintaas waxay dowladda Mareykanku Ruushka ka codsatay in loo soo dhiibo Snowden, balse Ruushku waxa uu ugu jawaabay inaysan ka dhaxayn labadan waddan inay maxaabiis isku dhiibaan. sidoo kale waxa uu Ruushku ku andacooday inuu Snowden yahay muwaadin soo booqday waddankaasi Ruushka, sidaas awgeedna aysan dhiibayn muwaadin si nabad ah ku jooga waddankooda. intii uu Snowden joogay waxa yimaaday waddanka Ruushka madaxweynaha waddankaasi Bolivia oo u yimaaday inuu ka soo qayb galo shirka dowladaha soo saara gaaska. intii uu madaxweynaha Bolivia joogay waddankaasi Ruushka ayaa arrimaha Snowden la soo hadal qaaday, waxaana madaxweynaha maankiisa ku soo dhacay, bal ka waran ninkan haddii aad waddankaaga deganaansho ka siiso. hadda u fiirso, maskaxdiisa un ayay ku soo dhacday ee maahan go'aan u qaatay. maxaa ku dhacay haddaba? ila daawo mudane. waxaa la gaaray dhammaadkii shirka gaaska looga wada xaajoonayay. markii uu damcay inuu madaxweynuhu u laabto dhankaas iyo waddankiisii Bolivia ayaa 4 dowladood waxay diideen in diyaaradiisu dulmarto. cajiib. waxaa ka mid ah dowladaha diiday in diyaaradda madaxweynaha Bolivia ay dulmarto maadaama ay hal mar kaliya niyadiisa ku soo dhacday inuu magangeliyo siyaasadeed siiyo Snowden. waxaa ka mid ah waddamadaas waddanka Talyaaniga, France, Spain iyo Portugal. haddaba diyaaradda madaxweynaha Bolivia waxay caga dhigatay garoonka Vienna. garoonka dhexdiisa ayaa aad lagu baaray diyaaradda madaxweynaha waddankaasi Bolivia. hadda waa diyaarad madaxweyne, iyadoo oo la isleeyahay waxaa ku dhex jira Snowden oo laga yaabo in magangeliyo siyaasadeed la siiyey. bal ka waran haddii madaxweynaha Bolivia uu soo raaci lahaa Snowden, waxaa hubaal ah in airport-ka uusan dhaafeen. dowladda Bolivia ayaa dib ula xiriirtay 4 dowladood oo diiday in diyaaradda madaxweynahoodu dulmarto, waxayna weydiiyeen sababtay u diideen, waxaana cajiib ahayd jawaabtoodii oo ahayd, run ahaantii ilado dhanka farsamo ayaana haleelay, sidaas awgeed ayaan idinka cudur daaranay. subxaanallah. waxaa hubaala in Mareykanku uu cadaadis saaray si loo hakiyo diyaaradda looguna baaro airport-ka Vienna, waxauna ahaa qorshe la sii maleegay. dowladda Mareykanku waxay isku daysay si kasta oo Snowden ku heli karto inay ku hesho, waxayna u tageen aabaha Snowden. waxay ku yiraahdeen, mudane waxaan ka codsanaynaa inaad wiilkaaga Snowden ugu tagto waddankaasi Ruushka, kuna soo qanciso inuu waddankiisa u soo laabto. wixii uu tabanayana insha Allah waa la eegayaa, sidoo kalena maxkamad adag la saari maayo. aabaha Snowden wuxuu ogaa mar haddii wiilkiisu Mareykanka soo caga dhigto in qorraxda iyo nuurkeeda laga qarin doono. waxaanu ugu jawaabay, wiilkayga ku qancin maayo inuu yimaado sababtoo ah waxa uu sameeyey wax saxan. anigaba haddii aan isaga ahay sidaas iyo si la mid ah ayaan samayn lahaa. bal ma rumaysan kartaa, Snowden aabihiis waxa uu ahaa shaqaale dowladeed, waxauna ka shaqeeyaa xafiiska dambi baarista Mareykanka ee FBI-da Mareykanka. bishii December ee 2013 ayaa Snowden waxa uu codsi deganaansho u dirsaday waddankaasi Brazil. waxa uu shardi ku xiray inuusan wax xog ah siin doonin dowladooda. sidoo kalena waraysi uu kula yeeshay waddankaasi Ruushka, mid ka mid ah wariyaasha ugu caansan ayuu ku sheegay Snowden in dowladiisa iyo xarunta CID-da uu weli daacad u yahay, yacni waxa uu faafinayay ay ahaayeen khalad dhankooda ah oo keliya. iyo right, CID-duna waxay ku haysaa hal mar uun keliya yaanoo ka gacangeliya.
المهم bishii lixaad sanadkii 2014 ayuu deganaansho weydiistay Snowden wadankaasi Ruushka waana loo ogolaaday inuu dego. intii aan mowduucan baaritaankiisa ku jiray ayaan waxaan soo ogaaday in 4 bilood ka hor dhamaadkii sanadkii 2020 Snowden weydiistay dawladda Ruushka inay siiyaan jinsiyadda Ruushnimada. cajiib. ogow haddii Ruushku siiyo jinsiyadiisa Ruushnimada ay aad dhabarjab ugu tahay wadanka Mareykanka. waana ognahay xiriirka adag ee ka dhaxeeya Ruushka iyo Mareykanka sida uu yahay. waxaa jira filin laga diyaarshay qisada ninkan oo lagu magacaabo Snowden. haddii aad rabto inaad qisadan si fiican oo dheeraada u daawato fadlan filinkaas daawo. haddaba su'aasha aan weydiinaya daawada ayaa waxay tahay maxaad ka aaminsan tahay Snowden maqaa'imba mise muwaadin daaha ka qaaday hagardaamada dawladda Mareykanka ku hayso shacabkeeda. fadlan like saar muuqaalka sidoo kale hadaa ku cusub tahay channelka subscribe saar lana wadaag asxaabtaada aad ayaad u mahadsantahay.